asalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeena maanta waxaynu uga hadli doonaa arrin la yaab leh waa safar caadi ah oo isku bedelay musiibo weliba musiibo meehe waxaa lagu tilmaami karaa inay arrintan tahay mucjiso haddaba saaxiibayaal 24 Diseembar 1971 dadka reer Beirut waxay u diyaar garoomayeen maalinta ciidda Christmaska oo ah maalin ay qadariyaan dalkan oo ah mid kamid ah dalalka dhaca koonfurta Ameerika ayaa kamid ah dalalka maalmaha ciidaha Christmaska aad looga dabaaldego haddaba saaxiibayaal Juliana oo ahayd gabar da'yar 17 jir ah waxay u socotay magaalo ku taala bartamaha keymaha Amazon si ay ula kulantay aabaheed oo halkaas u joogay arrimo cilmi baarista la xiriirta waxayna saarneed diyaaradda Lanza Flight 508 taasoo ahayd diyaarad yar oo rakaab ah hooyadeed oo la oran jiray Maria ayaa la socotay iyaduna ahayd cilmi baare caan ah hal mar sidii xaaladdu caadi u ahayd Juliana waxay aragtay cirkii oo madow noqday daruuro mugdi ah oo isku hareerayay diyaaradda iyo dabeelo xoogan oo ay soo galeen waxaana bilowday iftiinka hilaaca markii ay diyaaraddu dhex gashay roob duufaan ah waxaa dhacay wax aan la fili karin iyadoo diyaaraddu marayso hawada sare hilaac xoog leh ayaa si toos ah u garaacay mid ka mid ah baalasha diyaaradaha hal daqiiqo gudaheed diyaaraddii waxa ay bilowday in ay kala go'go'do burbur xoog leh ayaa ku dhacay diyaaraddii dadku waxa ay bilaabeen in ay qayliyaan wax walbana waa ay gariireen oo waa dareemi kartaa dad diyaaradii ay saarnaayeen ay burburtay haddaba saaxiibayaal Juliana iyadoo fadhigeeda diyaaradda ku dhegan waxa ay dareentay in ay si degdeg ah hoos ugu dhacayso hawada ayay ku socotaa iyadoo hoos u sii dhacaysa markaas ayaana miiri ugu dambeysay laakiin arrinta la yaab kale oo mucjisada waxay dhacday Juliana waxa ay soo toostay saacada kadib iyadoo oo dhex taalo keymaha Amazon markii ay toostay Juliana waxay lahayd dhaawacyo badan qoorteeda waa dhaawacyo ka soo gaaray garabkeeda wuu jabnaa yacni waa dareemi kartaa qof diyaaradan oo saarnaay ay burburtay dhaawacyo badan ayaa ku yaalay laakiin waxaa la yaab lahaa iyada kaliya ayaa ka badbaaday diyaaraddaas waxaa la rumaysan yahay in kursiga ay saarneed oo hoos u dhacay iyadoona ka soo kor dhacday geedo jilicsanay sidaas awgeed aysan wax waxyeelo badan oo dhimasho sababi kara aysan u gaarin Juliana haddaba saaxiibayaal markaan Juliana way nooshahay waxayna ogaatay in aysan heli karin wax caafimaad ah waxay bilowday inay lugayso iyadoo raacaysa webi yar waxa ayna rumaysnayd in webigan uu mar uun gaarsiin doono meel ay dad joogaan cunto ma aysan haysan waxa kaliya oo ay ku nooleed waa biyaha webiga oo ay mar walba cabaysay marmarna waxay cunaysay midhaha qaar ka mid ah dhirta duurka habeen walba waxa ay la hooyi jirtay qabow kaneeco iyo bahalada duurka oo ay kamid ahaayeen masaska sunta leh oo weliba khatar ah qofkii uu cuno laga yaabay kuwa badan oo kamid ah haday ku cunaan inaad u dhimatid Juliana markaan way daalan tahay laakiin hiyad ahaan uma aysan jibin maalinkii 10aad iyadoo xoogaa daciif ah ayay ka dhex baxday keenta waxayna aragtay doon kalluumaysto oo taagnaa webiga dhinaciis markii ay arkeen nimankii kalluumaysatada ahaa gabadhan daruufta iyo dhaawacyadu ay korkeeda ka muuqdaan si degdeg ah ayay u caawiyeen waxayna u qaadeen tuulo yar oo halkaas loo geeyay dhakhtar kadibna loo diray magaalada markay ka soo baxday dhakhtarkii waxay dib ugu laabatay nolosheedii waxbarashada waxayna sii wadatay wadadeedii sayniska ee qoyskeeda waxayna noqotay cilmi baare xoolaha duurka ah waxayna mar walba soo xasuusan jirtay saaxiibadeed hooyadeed iyo qaar badan oo kamid ah qaraawadii kuwaas oo ku dhintay burburka diyaaraddii ay ka badbaaday waxaana laga diyaariyay buugaag filmaan iyo sheekooyin la yaab leh haddaba saaxiibayaal muuqaalkeena maanta halkaas ayaynu ku sameynaa haddii aad nala soo gaartay ilaa iyo dhamaadka waxaa tahay qof noocaas ah fadlan subscribe na soo dhig oo nagu soo biir si aad ula socotid muuqaalada aan halkan ku soo baahino asalaamu calaykum waraxmatullaah